kulan waxaanu wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaa meel walba joogtaan waa habeen Arbacada Khamiis ayaa soo galaysa 2 bisha May idaacadda waxaad ku maqli doontaan mintidiinta Daacish oo sheegtay weerar isqarxin ahaa oo maanta 12 qof ay ku dhinteen oo ay la egteen xafiisyada guddiga doorashada ee caasimadda Tripoli magaalada Brussels shirkii Soomaaliya ayaa deeq-bixiyaashu waxay ku canaanteen dawladda sida gaabiska ah ee u socdo dhismaha ciidan qaran maxaase hortaagan in la helo ciidamo qaran siyaasadda Soomaaliya ilaa ay ka midoobayso oo siyaasad degan oo xasan laga helayo ciidan qaran lama helayo magacaan jirin wax loo bixiyo waa dhibaato waxaad kaloo maqli doontaan Djibouti oo qayb ka siinaysa Itoobiya mid ka mid ah dekedaheeda shirkadda Hormuud ee Soomaaliya oo $100,000 ugu deeqday fatahaadda Hiiraan iyo shirkadda Dahabshiil oo sheegtay in ay deeq gaarsiinayso qoysas ay fatahaaddu saameeyeen ee magaalada Beledweyne 3,000 oo qof dad gaaraya ama qoysas gaaraya ayaa waxaanu ugu dhawaaqaynaa in aanu qoysaska u qaybino bariis, sonkor, bur, saliid. qodobadaas iyo warar kale oo caalamka iyo gobolka iyo sportka ku saabsan ayaad maqli doontaan nusa saacaha soo socda halkani waa London. سالمين أي برنامج كسود ديارية وحنسوق بلعبنا ورك عالم كي BBC ده واحد نوع هيسه وريها يجا فاضمة معلنا بكر. mahadsanid cabdinuur kooxda isku magacooday dowladda islaamiga ah ayaa sheegatay inay ka dambeysay weerarkii bambada loo adeegsaday ee ka dhacay liibiya kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof kadib markii kooxo maleeshiya ah ay weerareen xarumaha guddiga doorashada ee magaalada Tripoli war ay soo saartay kooxda ayaa lagu sheegay in weerarku uu daba socdo fariin cod ah oo dhowaan uu soo diray afhayeenkooda isagoo ku hanjabaya in la carqaladeyn doono doorashooyinka ka dhaca wadamada islaamka xisbiga talada haya ee dalka Armenia ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradka ee horseeday dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda uu ku taageeri doono inuu noqdo ra'iisul wasaare xisbiga jamhuuriga ma uusan carabaabin Nicole Pashinyan balse wuxuu sheegay inuu taageeri doono musharaxa ay soo magacaabaan 3 meelood xildhibaanada marka ay qabsoonto codbixinta baarlamaanka toddobaadka soo socda isagoo taa ka jawaabaya ayuu Pashinyan ku baaqay in dibadbaxyada la joojiyo qorshe maaliyadeedkii ugu horeeyay ee guddiga Yurub kadib ka bixitaanka Britain ayaa maanta lagu dhawaaqay wuxuu guddigu qorsheynayaa inuu buuxiyo booska ay banaynayso UK iyadoo canshuur lagu soo rogayo haraaga caaga iyo kaarboonka hawada lagu sii daayo laga bilaabo sanadka 2021 wadamada saboolka ah ayaa heli doona taageero yar arrintan ayaa waxaa saluugay dalka Poland halka Faransiiskuna uu cabasho ka muujiyay in la dhimo dhaqaalaha beeraha lagu bixiyo dowladda Britain ayaa qiratay in haween gaaraya 270 ay u dhinteen kansarka naasaha ku dhaca sabab la xiriira qalad dhanka kombiyuutarka ah tan ayaa micnaheedu yahay in 100,000 oo haween ah aanan lagu casuumin baaritaanka cudurka ee joogtada ah bilowgii sanadkan la socoshada iyo baaridda kansarka naasaha ku dhaca ayaa lagu ogaan karaa calaamadaha hore ee cudurka waxaana 3 sanaba mar loo sameeyaa haweenka ku nool Britain ee ay da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 70 jir ugu dambeynna warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in magaalada ugu daran ee hawadeedu aysan nadiif ka ahayn ay tahay magaalada Kaambur oo ku taalla waqooyiga Hindiya 14 magaalo Hindiya ka tirsan oo ay ku jirto caasimadda Delhi ayaa ka mid noqday 20 magaalo ee dunida ugu daran dhanka wasakhowga hawada ee daraasadda lagu soo qaatay warkii caalamkana waa naga intaa cabdinuur فاضمة معلنا بعض ما حسنت هاي هالكني وBBC لندن ودي القلوب إذا عندك قريبه هذا كله شركة صومالية براسلس اللي قلت لك قلي اسمها عيدا حير قرنه والصومالية أي لطائية نوصل الصعدة أن سيجنا مركن من تدين الداعش أو شيكتي إن أي مسؤول كأهايين ويرس قرحينها أو مانتي اللي يكتي حفيز هذا جودة الدورشين كالليبيا عاصمة تريبولي إلا اللي بيطبعوا قفيا كل انتي ورركاس يكون جدا بيجوا وحنا هي مولد حاجة عبد إيمانك استوديو هلا فرديه wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in qof isu soo miidaamiyay ugu yaraan uu markaas u sameeyay inuu ka isku qarxiyo iyadoo sidoo kale ay jirtay in dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha oo ku yaala magaalada Tripoli isla markaasna ay dab qabadsiiyeen
dadka codkooda dhiibanaya ayaa la sheegay inay goobtaasi ku sugnaayeen si ay iskugu diiwaangeliyaan doorashada la filayo inay dhacdo dabayaaqada sanadkan kooxda la magac baxday dowladda islaamka ma jirto caddayn rasmi ah oo ay markaasi muujinayaan in weerarkaasi ay ka dambeeyeen waxaana weerarkan la aaminsan yahay inuu yahay mid ka mid a nuuciisa weeraradii ugu waaweynaa ee muddooyinkan dhacay libiya ayaa gashay xaalad foolxun tan iyo markii 2011 kooxo hubaysan ay afgambiyeen xukuumaddii Muammar al-Qaddafi islamarkaasna ay dileen 42 sano oo xukunka Qaddafi ka dambeysay dalka ayaa u kala jajabay in ay kooxo kala duwan ay gacanta ku hayaan iyadoo ay jiraan 3 qaybood oo kala duwan oo dawladda iyaguna sheeganaya dadka arrimahan ay ka faallooda waxa ay sheegayaan in ay tani tilmaamayso in qatarta ee ka jirta waddanka Liibiya ay noqonayso mid soo taraysa afhayeen u hadlay guddiga doorashooyinka waddanka Liibiya Khalid Umar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in 3 sarkaal iyo 4 ka mid ah shaqaalaha ammaanka ee dhismahaasi la dilay waxaa kale markaasi la sheegay in ay tirada dhimashadu ilaa hadda ay sii marayso 12 qof cabdinuur arrimaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in xafiiska qaramada midoobay waddankaasi Liibiya bartooda Twitterka war ay soo dhigeen ay si weyn ugu cambaareeyeen weerarkaasi waxaase ay sheegeen in aysan arrintani majaxaabi doonin dadaalka dadka Liibiya sida hadalka loo dhigay ay hore ugu soconayaan waxaynu la soconaa qaramada midoobay inay taageerto dowladda midnimada qaran ee magaalada Tripoli saldhigeedu yahay laakiin waddanka guud ahaantiis markaad fiiriso waxaa jira ilaa iyo dhowr qaybood oo kala duwan ciidanka isbahaysiga la yiraahdo GNA ayaa iyagu waxay haystaan Tripoli iyo Benghazi waana kuwa ay dowladda ay taageerayso qaramada midoobay laakiin waxaa jira golo kale oo la yiraahdo golaha shuurada oo iyaguna ka taliya qaybo badan oo ka tirsan waddankaasi gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Dumaya oo dhinaca Masar xiga waxaa kaloo iyaguna jira kooxo aan la aqoon markaasi oo isku dhafan inay ka taliyaan deegaanka ama gobolka la yiraahdo Al-Qufra oo dhinaca Suudaan iyo Jaad xiga waxaa kaloo jirta qabaa'ilka iyaguna la yiraahdo Tuwaraqa iyo Tebuga ayaa iyaguna waxay ka taliyaan gobolka Murzaq ee caasimadiisu tahay Sabha waana dhinaca Niger iyo Algeria xuduud leh waxaa kaloo iyaguna jira koox kale oo lagu tilmaamay inay yihiin kooxaha dowladda la magac baxday islaamka oo magaalada Sirta iyo deegaanka la Jufraqa u dhaxeeya khadamiis kuwalira ayaguna jira oo dhinacaas iyo galbeedka ayaguna gacanta ku haya marka waxaa moodaa waddanku inuu yahay waddan gebi ahaantiisa kala qaybsan arrintan maanta ka dhacday magaalada Tripolina waxay dadka xusuusinaysaa 2015 markii weerar uu ka dhacay hoteelka la yiraahdo Coronte ee magaalada caasimadda ku yaala kaasi oo 9 qof lagu dilay qubarada arrimaha ka faaloota waxay shaki gelinayaan doorashada sida ay u qabsoomi doonto sanadkan dhamaadkiisa hadiiba xaruntii doorashada maanta la bartilmaameystay maxay noqon kartaa waa leeyahay meelaha kale ee doorashada lagu qabanayo dadka shacabka isugu imaanayaan cabdinuur mawlid aad baad u mahadsan tahay halkaad nagala socotaana waa BBC London magaalada Brussels waxaa ka socda shir sare wuxuu ku saabsan yahay qorshaha la doonayo Soomaaliya inay yeelato ciidamo qaran oo sugi kara amnigeeda oo kala wareegi kara amniga waddanka ciidamada nabadgelyada midowga Afrika oo ay ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya dhinaca amniga meelo badan haddaba shirkaasi Brussels deeq-bixiyaashu waxa ay soo jeediyeen sida ay Soomaaliya looga baahan yahay inay u dedejiso dhismaha ciidamada qalabka sida si ay u wajahaan mintidiinta shabaab haddaba muddo ayaa lala tacaalaya dhismo ciidamo qaran oo dalku u yeesho ilaa iyo haddase ciidan lagu sifayn karo ciidan heer qaranihi ma jiro mursal maxamuud sanay waa agaasima ku-xigeenka macadka heritage ee cilmi baarista fadhigiisu yahay magaalada muqdisho mursal oo iminka jooga magaalada London ayaan maanta marsii horeysay telefoonka aan ku wareystay oo waxaan weydiiyey shirka Brussels bal waxa laga fili karo Soomaaliya markii ugu horeysay shir loo qabtay ma aha beesha caalamkana waxaad u maynaysaa in ay aad ugu dadaashay Soomaaliya inay kaalmayso marka shirkan waxa laga fili karaa waxa waaye qodobada miiska saaran oo aan arkayna hadda in laga wada hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo hogaaminaya wafdigii Soomaaliya waxa ugu muhiimsan waxa waaye dawladda Soomaaliya wixii laga rabay kameena soo bixin waxa ka soo baxay wixii laga rabay beesha caalamka oo aan meel u wada soconin isku ajanda ka ahayn isku mowqif ka ahayn sida ciidan Soomaaliya loo helaa laakiin ayaga waa ka soo bixin ayagoo kala daadsan ka soo bixin
waxa la sugayo waxa waaye beesha caalamka oo taageeradeeda sii wada iyo Soomaaliya oo waajibaadkii laga rabay inay gudato oo ahaa heshiiskii London heshiiskii go'aamadii ka soo baxay oo fulintooda laga rabay oo lagu fashilmay in la fuliyo sababta loogu fashilmay waxay tahay amni lama heli karo ayadoon siyaasad dalka fadhinin marka annaga as heritage ahaan macad heritage waxaan ka qornay daraasad dalka hor oo aan leenahay ciidan AMISOM shabaab kama adkaan karto shabaab wax ka adkaan kara ciidan Soomaaliyeed ciidan qaran oo ciidan Soomaaliyeedna dhisidiisa talaabo loo qaadin marka waxaa muuqata wixii lagu heshiiyo ahaa ciidan midaysan in la suubiyo waa lagu fail garoobay sida muuqata dawladda waxay la timid qorshe la timid oo la rabay in waqti kooban lagu fuliyo oo road map loo suubiyay marka waxaan isleeyahay waxa ka soo baxay waxa waaye dhaqaalihii la siin jiray in la sii wado AMISOM oo AMISOM sii joogto Soomaaliyana ay u tafahaydato dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ayaga shirka ku ah siyaasadda dalka inay siyaasadda fadhiisiyaan kadib ayaa la heli karaa ciidan Soomaaliya sheegtay shirar badan inay dhaceen natiijooyin badan lacag badan la aruuriyay nusqaanka ku jira dhinacyadan kale ee Soomaalida ahayn sheegtay Soomaalida runtii markaad daraasaad samayseen oo aad si laba ugu daba gasheen ma xukuumadihii kala dambeeyayba arrinta aan u hagar bixinin ma Soomaalida lafteedaan diyaar u ahayn ma jirto annaga ma aran arag dawladii hore qaarna waa la shaqeyn qaarna waa dhex joognay dawladdan waa dhex joognaa rabitaan ah in la fuliyo wixii lagu heshiiyay ma jiro waxaana ka hortaagan markasta waxa lagu mashquulaa siyaasad qaldan rabitaan Soomaaliyeedan jirin oo ah ciidan Soomaaliyeed in la dhiso ma jiro rabitaan Soomaaliyeed sida noo muuqata maxaa dhacay may sanadkii hore ahayd markii lagu heshiiyay London maydii hadda dhalatay laana wax laga fuliyay aad ay u yaryihiin walow dadaal badan ay soo bisay dawladda Soomaaliya qaasatan wasaaradda gaashaandhigga aad u daashay laakiin waxaa muuqata koow rabitaan ma jiro laba farsamo yaqaanadii hawshan qaban lahaa ha noqoto heer wasiir ha noqoto heer taliyaal gacanta kuma hayaan shaqadii marka mashaakilka waxa waaye Soomaalida boqolkiiba annaga haddaan nahay Soomaaliya boqolkiiba 85 annaga iskala mashaakilka beesha caalamkana qaybta ay ku leedahay waxa waaye waana kaalmayso waana garab istaagtay laakiin ajanda midaysan ma laha common policy ma laha iyo dhaqaale midaysanna ma laha marka labada dhinac marka culayska waa ka jira laakiin eedda ugu weyn waxa iskale dawladihii Soomaaliya ee isaga dambeeyay xilalka dalka oo aanan gelinin waqtigii iyo aqliga loo baahnaa una kaalmaysanin farsamo yaqaanadii dhabta ahaa ee shaqadan fulin lahaa Cabdinuur marka wax ma isbedelayaan baad isleedahay marka haddii la sii wada dadaalada iyo cadaadiskan qolyahan caalamku ay ku hayaan iyo Soomaaliya lafaanteeda cadaadiskan shabaabku ku haya xagga dawladda aniga waxaan isleeyahay wadamo qaarkood oo Soomaaliya kala ah ayaa jira مثلا Afghanistan ciidan qaran loo dhiso waa lagu guuleystay maxaa siyaasad midaysan la helay Iraqna waa la heli waayay maxaa dhacay waxa loo heli waayay waxa intaas oo bilyan oo dollar lagu bixiyay ciidan waxa loo helayaa Iraq oo ka adkaada argagixisada siyaasad aan midaysnayn way siyaasadda Soomaaliya ilaa ay ka midoobayso oo siyaasad degan oo xasan laga helayo ciidan qaran lama helayo magacaan jirin wax loo bixiyo waa dhibaato ciidan magac wata waa la heli doonaa ciidanka qaranka la leeyahay laakiin maleeshiyaad meel ku kala xareysan oo dad kale leeyihiin oo hoggaan maamul goboleed leeyihiin hoggaamiye kooxeed leeyihiin oo bay si ahaanayaan sida ila tahay aniga ila tahay markaan u kurgalno oo baarnay waxa waa ciidan qaran oo Soomaaliya siyaasad degan u baahan yahay siyaasad deganeedna ma muuqato kadibna waxay u baahan tahay go'aan dhab ah oo ay qaataan leadership hoggaanka dalka inay fuliyaan arrintaas marka ilama ah ciidan qaran Soomaaliya oo midaysan in dhawaan la heli doono ilama ah maxaa jidkeeda lagu ma taagno laakiin waxaan soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliya waxay la timid ajanda la timid shuruud ma baa yaalo in la kulmo u baahan waqtigiisii waqti walba waxa la qabto waana arki doonaa haddii waa lidin mursal sanay ku-xigeenka agaasimaha macadka heritage fadhigiisa magaalada muqdisho oo mursal isagoo London jooga ay waramayay maanta maxamed cadda ayaa iminka stuudiyaha igu weheliya wuxuu soo akhriyay wararkii laga yiri shirki Brussels maanta furmay siiba talooyinka laga bixinayo bal sida dalku ciidan qaran u dhisan karo dawladda Soomaaliya waxa la rabaa inay dardar geliso sidii ay u dhis lahayd ama isbedel ugu sameyn lahayd ciidamadeeda qalabka sida waxaana inta badan dawladdaasi taageera ciidamo ajnabi ah sida wadaxaajoodka iyo horumarka laga sameeyay isbedelada la sameynayo waxa la rabaa in looga taqaluso waxa lagu sheegay musuqmaasuqa isla markaana ay ciidamada qaranka ay awood u yeeshaan sidii ay ku hanan lahaayeen ammaanka wadanka ogana adkaan lahaayeen waxa lagu sheegay ururka xagjirka ah bayaan laga soo saaray Brussels ayaa looga dalbay dawladda Soomaaliyeed in ay la wareegto ama ay wax ka qabato dhibaatooyinka lagu sheegay warbixintii sanadkii hore ee qaramada midoobay ee ururka midowga Afrika ay wadajirka u soo saareen warbixintaas ayaa ugu baaqaysa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo lagu sheegay inay yihiin kuwa aad u nugul oo aad iyo aad u tabardaran inay la wareegaan gacan ku haynta isla markaana ciidamada nabad ilaalinta ururka midowga Yurub loo diyaariyo sidii ururka midowga Afrika
loo diyaariyo sida 2020 ay ugu wareejin lahaayeen xilka ammaanka Soomaaliya ciidamada qalabka sida. ururka midowga Yurub ciidamadiisa ayaa bilaabay inay bilaabaan sanadkii la soo dhaafay, hase ahaatee inta badan kacdoonka ururka wada ee al-shabaab ayaa lagu sheegay inay weerar joogto ah ku soo qaadaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale. waxaana sidoo kale la sheegayaa in ciidamada qalabka sida iyo ururka al-shabaab sida ay dadka la fagura arrimaha militariga ay sheegayaan in ay weli dagaalkooda uu gabadhaclaynayo. hay-adaha wadamada deeqda bixiya ayaa sheegaya waxa loo baahan yahay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed lagu diiwaangeliyo nidaam casri ah oo la yiraahdo biometric. macnaha waxa weeye faraha iyo indhaha iyo qofka inta laga qaado isla markaana lacagtana ay noqoto qofka qaadanaya inuu si sax u qaato si musuqmaasuq looga hortago. waxaa kale oo si weyn loogu hadlay bayaankani in xukuumadda Soomaaliya horumar ka samaysay arrimaha dhaqaalaha markii ay kulanka la yeelatay sanduuqa caalamiga ah ee lacagaha, taasoo soo jeedisay in maamulka xagga dhaqaalaha ee Soomaaliya uu soo xoogeysanayo, isla markaana la sheegayo in xukuumadda ay u baahan tahay inay meel mariso isbedeladii laga dalbay iyo sidii shaqaalaheeda ay si wanaagsan oo la socon lahayd. waxaa kaloo cad markii ugu horeysay in IMF-ta ay ka fakarayso in Soomaaliya ay lacag siiso si looga baaqsado in dowladda Soomaaliya ayna dhibaatada xagga kharashka ka haysata meesha uga baxdo maadaama ay maamulku soo hagaagayo. aad baad u mahadsan tahay. facebookana dhowr dhegeysta iyo ra'yiga ka soo dhigtay waxaa ka mid ah Jaamac Cali oo jooga magaalada Muqdisho. waxay shirkan Brussels looga hadlayay arrimaha Soomaaliya waxba ma soo kordhin doono, waxaan u arkaa mid waqti lumis oo rajo xumo un abuuraya. faarax bare oo jooga xagar dheerna waa uu soo dhaweeyey shirka, waxaana uu rajo ka muujiyey in uu noqon doono mid miro dhala. halka aad nagala socotaana waa BBC London. dowladda federaalka ah shirkada gaar loo leeyahay iyo dad samafalayaal ayaa ku howlan gurmad gargaar ay ku gaarsiinayaan kumanaankii qoys ee fatahaadda gobolka Hiiraan siba magaalada Beledweyne ay saamaysay oo guryahoodii iyo magaaladiiba ka qaxay oo duleedka magaalada ku nool. shalay shirkadda Hormuud ayaa waxa ay sheegtay inay ku deeqday $100,000. Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo madax ka ah qaybta samafalka ee shirkadda ayaa BBC-da u xaqiijiyey lacagtaasi $100,000 inay ugu talagaleen dadkii Beledweyne ka qaxay. maantana shirkadda Dahabshiil ayaa shaacisay inay ku darsatay gurmadka fatahaadda mucaawino kala duwan oo ay ugu talagashay ilaa iyo 3,000 oo qoys. maamulaha shirkaddaasi Dahabshiil Cabdirashiid Siciid Ducaale ayaa telefoonka Imaaraadka Carabta mar dhaweyd wuxuu ugu warramay Mawlid Xaaji Cabdi. sida aad u sheegtay dhibaato culus baa goboladaas ay u geysteen biyaha iyo falaadhiska ama daadadka ku dhacay. dad badan oo masaakiina ayaa wixii ay maal iyo xoolo lahaayeen ba ay khasaaro soo gaadheen. marka annagoo ka qayb qaadanayna sida dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaanu ku dhawaaqaynaa dadnahay Dahabshiil Group inaanu deeq gaarsiino dadka dhibaataysan ee magaalada Beledweyne iyo agagaarka maartay magaaladaba u kala qaxay ama kala degay. marka deeqda aad ku tala gashay inaad bixisaan Cabdirashiid maxay tahay balada haddii aad nala wadaagto waxa ay la-eg tahay waxa aad haysaan inaad bixisaan maxay tahay? mawlidow dadka anagu ilaa 3,000 oo qof dad gaadhaya ama qoysas gaadhaya ayaa waxaanu ugu dhawaaqaynaa ama qaybintooda aanu ka qayb qaadanaynaa in aanu qoysaska u qaybino bariis, sonkor, bur, saliid. dadkaas oo kala degan maartay magaalada Beledweyne ama maartay tuulooyinka wabiga ku xeeran galbeed iyo bari, buurta Jantishe, ceel Jaalle, dhammaan dadkaas oo dadkii dhibaatooyinku ay soo gaarsiiyeen biyahaas iyo madaadadka ku fatahay. waxaanu kaloo ku dhawaaqaynaa oo aanu dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba gudaha iyo dibadda ugu dhawaaqaynaa inay dadka ay caawiyaan annagoo u furnay account ay lacagta ugu shubi karayaan. xagga xawaalada kale account baan ugu furnay oo qofkii ama dibad jooga ama gudaha jooga annagoo wax khidmad ka qaadan karin oo wixii uu awoodi karo qof waliba uu ugu shubi karo. accountnadaas waxaa ka mid ah numberka ah 15 iyo midda ah e-dahab ama mobile payment-ka Somtel iyo e-dahab iyo Dahabshiil ay leeyihiin oo isla numberkiisu noqonayo eber 6 2 eber
15 waxaan ugu talagalay qof walba oo dadka dhibaataysan oo caawin karaya inuu wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba ay lacag ugu diri karayaan. dadka maamulayana waxa weeye shaqaalaha dahabshiil, wakiilada dahabshiil iyo dadka odayaasha ah ama waxgaradka ah ee gobolka degan si ay u hubiyaan in dadkii masaakiinta ah ee dhibaatada ay soo gaadhay ay deeqda raashinka iyo taa lacageed ee akawnada lagu shubi karaba ay u gaadho sida ugu dhaqsaha badan haddii la ka dhigo. kolley yaraysi male gargaar waa gargaar, laakiin waxaa jirta dhaliil laydiin jeedinayo shirkadihiinna ganacsiga ama ha ahaato isgaarsiin ama xawlaad ama ganacsi kale aad ku jirtaane macaashka aad heshaan iyo faa'iida aad ka heshaan dadka Soomaaliyeed iyo waxa aad bixisaan waxa la yiraahdaa isma leeka. dhaliishaas oo kale sidee baad ugu aragtaa? والله ولا البوليدو قرمها دليشاس بيشا كايبانايسو انا هادون دهبشيل لانو شركدو دhan uma hadlo hadaan dahabshiil lahay intaan shaqeynayna mar ay dhaceen iyo mar ay dhaceen maxaa la yiraahdaa daadadku iyo mar ay cusbitaal la sameeyo iyo hadii maartay dhulka wadooyinka laga shaqeynayaba mar walba shirkadda dahabshiil bilow to dhamaad waxay shirkadaha la oran karayo ugu horeeyay arrimaha samafalka qayb qaadata. marka waxa weeyaan cidii Soomaalida wax taraysana waa ku dhiirigelinayna yar iyo weyn ganacsatada kalena waa ku dhiirigelinayna cid walba inay dadkii dhibaataysan jiracsan ay wax ka qabtaan. Cabdirashiid Dahabshiil oo BBC-da uga warramayay kaalmo shirkadda Dahabshiil ay ugu deeqday dadkii fatahaadda ee beledweyne ay saamaysay. halkani waa London. ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. dowladda Djibouti waxay ogolaatay dowladda Itoobiya inay qayb ka siiso mid ka mid ah dekedaheeda. waxay ka dambeysay heshiiskii dhexmaray labada wadan ee jaarka ah oo ka dhashay booqashadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee Abiy Ahmed uu ku tagay Jamhuuriyadda Djibouti oo halkaas ay wada hadal ku yeesheen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. wariyaha BBC-da Tommy Orodebo ayaa ka warramaya waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. labada dal waxay weli ka shaqaynayaan heshiiska qaabku noqon lahaa gaar ahaan saamiga ay Itoobiya ku yeelanayso dekada Djibouti. khubaro arrimahani loo xilsaaray ayaa la filayaa inay ku soo gabagabeeyaan diyaarinta heshiiskaasi labada bilood ee soo socota. Djibouti ayaa waxay iyaduna doonaysaa inay saami ku yeelato shirkadaha waaweyn ee dalka Itoobiya. wadada tareenka ee isku xidha caasimadaha labada dal ayaa ah mid shaqayso, waxayna horay heshiis u galeen in Itoobiya ay wadanka jaarka la ah ee Djibouti ay gaarsiiso biyaha nadiifka ee la cabo. heshiiskani dekada Djibouti ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli muran dheer uu u dhaxeeyay Djibouti iyo shirkadda DP World taasoo fursad wanaagsan u abuurtay labada dal inay heshiiskani ku dhaqaaqaan. Itoobiya sidoo kale waxay saami ku yeelatay dekada Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida uga dhawaaqday ee Somaliland ee Berbera, taasoo loo arkin mid ku soo beegantay xilligii ku habboonayd heshiiskaasi, iyadoo ay taagan tahay ismariwaaga u dhaxeeya Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida uga dhawaaqday ee Somaliland iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiska wadamada kale lala galo ee ka soo horjeesatay dowladda Soomaaliya, iyadoo ay Somaliland mowqifkeeda ay ku adkaysatay. Cadow aad buu u mahadsan yahay. dhinaca kalena loolankii carabta khaliijka oo ku soo jabay Soomaaliya iyo saamayntiisa sida uu ku leeyahay gobolkaasi ayaa wax ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters. loolankaas waxaa bartanka u galay Soomaaliya, waxaa kala jiidanaya Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca, Gadar oo kaashanaysa Turkiga oo dhinaca kale ah. Maxamed Cabdi ayaa sheekadaas soo akhriyay oo nooga warramaya. waxyaabaha la isku hayo waxaa ugu waaweyn biyaha caalamiga ah ee Soomaaliya ku teedsan, waxaana sidoo kale la isku hayaa xasiloonida mustaqbalka ee wadanka Soomaaliya laftirkiisa. Soomaaliya ayaa muddo dheer dagaal sokeeye ku jirtay. sanadadii ugu dambeysay waxaa muuqata in ay soo jiidanayso maalgelin xagga dibadda ah. waxaa ishaya wadamada ku sugan gacanka carabta oo doonaya in ay saameyn ku yeeshaan Soomaaliya. sanad ka hor shirkad laga leeyahay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa heshiis la saxiixday maamulka Puntland. lacagta ku baxaysa in lagu ballaariyo dekada Boosaaso ku taala ayaa waxaa lagu qiyaasayaa 336 milyan oo doolarka Mareykanka ah. in ka yar hal sano ayaa isla shirkadaasi ayaa waxa ay sidoo kale heshiis ku gashay inay Berbera ku ballaariso lacag gaaraysa ilaa 440 milyan oo doolar. bisha March isla sanadkaasi ayaa Itoobiya waxaa laga siiyey saami dekada Berbera. Turkiga iyo dalalka ka soo horjeeda wadanka Qatar, dalka Qatar oo ay Sacuudiga iyo ka soo horjeedaan Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa iyana lacag fara badan oo maalgelina ku riixaya Soomaaliya. shirkadaha
waddanka turkiga laga leeyahay ayaa waxa ay gacanta ku hayaan dekedda ku taalla magaalada muqdisho laga soo bilaabo sanadkii 2014 iyadoo turkigu uu dhisay waddooyin iskuullo iyo isbitaallo qolyaha ka soo horjeeda ayaa dardargeliyey hawshooda wixii laga soo bilaabo bishii juun waxaana muuqata waddamada ugu awoodda weyn gacanka carabta oo ay sacuudiga horseed ka tahay oo ay ka mid tahay isutaga imaaraadka carabta in ay xiriir ka goosteen waddanka qatar waxaa lagu eedeeyey qatar inay maalgeliso waddamada iiraan iyo ururka islaamiistayaasha ah ee soomaaliya ka jira sidoo kale bariga dhexdoodiisa ayaa waxa ay sidoo kale keentay hanqaltaag weyn in loo taago gobolka geeska afrika iyo gaar ahaan biyihiisa sida ay diblomaasiyiinta ganacsatada iyo aqoon-yahanada ay sheegayaan ku sugan dibadda iyo soomaaliyaba soomaaliya waxaa sidoo kale ay leedahay baa laleeyahay waddada ay maraan saliidda caalamka oo dhan sidoo kale waxay leedahay dekado ay ka faa'iidaysan karto waddanka etoobiya oo ay ku xereeraysan tahay oo aanu bad lahayn waddamada gacanka ayaa la sheegayaa in ay isku dayayaan inay soomaaliya galgal ku yeeshaan warkan oo aad u ballaaran ayaa hadda waxaa muuqata in laga yaabo in qatar laftirkeeda inay ku maalgeliso soomaaliya lacag gaaraysa $385 milyan oo ay ku dhisayso kaabayaasha waxbarashada iyo arrimaha gargaarka bini'aadanimada dagaalka dhinacyada aad buu u socdaa maxaa cadda mahadsanid dadka tahriibaya ee doonaya inay galaan yurub waxay sii mari jireen turkiga waddo ka mid ay ahayd waa la ogaaday iminka waxay bilaabeen in ay waddo kale oo cusub samaystaan wariyaha b b c da james raynold ayaa ka warramaya waxaa soo jeedinaysa faadumo macalin abukar marka uu xirmo marin laga galo yurub ayaa waxaa furma mid kale webiga efros oo ah mid kala qaybiya turkiga iyo giriiga ayaa hadda ah mid aad u mashquul badan oo si khatar leh ay uga tallaabaan muhaajiriinta u socda yurub bistos baskalaki oo ka mid ah kalluumaystada webiga ayaa igu qaaday doontiisa waxaan jiinka webiga ku aragnay doonyo macmal ah oo ay ku gudbeen dad muhaajiriin ah anigu waxaan helay oo keliya alaabtayda sida boorsooyinkayga iyo wax la mid ah balse inta badan saaxiibadayda waxay heleen xitaa dad dhintay meydadkooda ka tallaabidda webiga ayaa ah mid khatar badan waxaana dadka muhaajiriinta ah oo adeegsanaya doonyo la buux dhaafiyey ay ka gudbaan xilliga habeenka ah nin ka mid ah kalluumaysatada ayaa si hoose ugu sheegay baskalaki in mararka qaar ay arkaan meydadka dad ku qarraqmay webiga balse aanay wax dan ah ka gelin oo aanay dowladda ku wargelin webiga ayaan ka gudubnay waddooyinka u dhow ee dhanka giriigana waxaan ku aragnay rag turki ah oo noo sheegay inay ka soo carareen caburinta siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta waxaannu ka tirsannahay dhaqdhaqaaqa fatola gulen turkiga dhibaato badan ayaa nagu haysata haddii dhibaatadana haysata ay dhammaatana waxaan diyaar u nahay in aan dalkayaga turkiga ku laabanno dad badan oo turki ah ayaa doonaya inay u soo baxsadaan dhanka giriigga dabcan dad aad u badan weeyaan dadkaasi qaar badan oo ka mid ah dadka muhaajiriinta ee ka soo tallaaba webiga ayaa lagu hayaa xero ay maamusho dowladda giriigga halkaas oo ay ku gudbiyaan codsigooda qaxootinimo heshiis ay turkiga iyo midowda yurub gaareen sanadkii 2005 ayaa waxaa lagu joojiyey qulqulkii muhaajiriinta suuriyiinta badan ee giriigga kaga soo tallaabi jira badda ejiyanka balse marinkan cusub ayaa u muuqda mid ay dad badan fahmayaan islamarkaana dhalin kara inuu dib u bilowdo qulqulka qaxootiga maciinka bidaya dalalka yurub faadumo macalin aad bay u mahadsan tahay warkan iyada noo akhrinaysay iminkana wararka isboortiga cayaar aad la yaab ule ayaa caawa la sugayay Roma ee ku dhex maraysa kooxda Roma iyo kooxda Liverpool waa qaybtii labaad tii hore sida la socotaan garoonka Liverpool 5-2 Liverpool ayaa ku badisay caawa kooxda soo baxdaana finaalka waxa ay isugu imaan doonaan oo ay isqaabili doonaan Real Madrid oo 5 sano la soo dhaafay finaalka u soo baxaysay waliba 3 kamid ah koob kala qaadatay waa tahay habeen dambana waa Arsenal iyo Real Madrid oo iyaguna kooxda guuleysatay u soo bix Atletico Madrid raalli ahaada oo kooxda guuleysataana ay u soo bixi doonto finaalka koobka labaad ee Yurub intaas ayaa idaacaddii ku dhantahay nabaday